First aid. First aid waa gargaarka degdega ah. Waa gargaarka degdega ah waa kaalmada ama caawinaad guud ee loo qabto qof shil galay. Aqoon macnaha qof shil galay taageer loo sameeyo qofka dhaawaca soo gaaray wax uu ku dhac gargaarka loo sameeyo. Aqoon-yahan caafimaad hortiis ujeedaduna waxay tahay si loo badbaadiyo qofka shilka galay. Macnaha qofka shil galayo meesha isbitaalna kama dhowo, marka qofka doo kalkaaliye ama si wax loo daaweeyo yaqaano oo caafimaadku wax ka yaqaano qaabkan kalkaali ahaan ugu shaqeyn kara zaman intuu dhakhtarka la gaarin howshiis kalkaalinimo ka qabsan kara zaman isagoo qofkan ku caawinayo. Marka saas waa kalkaalinimada gargaarka degdega ah. Waxaa suurtogal ah haddii uusan helin gargaarka degdega ah inuu dhaawacaas u dhinto. Way dhacdaa Soomaali dad badan oo wax u gargaara la waayo iska dhinto, dhiig bax u dhinto, neef qabatin u dhinto, masqalin u dhinto, gargaarta waayaan dhibaatooyin badan u dhinto. Qof u gargaaro oo caafimaadku wax ka yaqaan marka siin lahaa Ilaahay badbaado iska leh wuu badbaadi lahaa ama uu neefo ama uu naafo u noqdo. Xanuunada qaar waxaa jiro qofka inuu naafo noqdo. Waxaa kaloo laga yaabaa qofka dhaawacmaya lugtaas haddii gargaar ay heli ama halbowle ay ka go'ay waa la xiraa marka qofka aqoon xaalis kaga xiraa lugta inteeda kale waa dhimay. Laakiin qof caafimaadka yaqaan doo helo waxaa suurtagal ah qofkaas inay lugtu badbaado oo si wanaagsan oo dhakhtarka hadhow u daaweeyo.